beelaha degan Maroodi Jeex saaxil iyo gobolka Tagdheer Ciise Muuse mar labaad waxaan salaamayaa salaadiinta sharafta leh la socota cuqaasha xildhibaanada siyaasiyiinta iyo dhammaan dadka meesha fadhiya nin walba masabkiisa ku salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inta markaan ka gudbo suldaanka waxaan suldaan cali suldaan cismaan suldaan cali kooshin waxaan bogaadin iyo hambaliyo uga sidaa maanta cid isku haysataa ma jirto suldaanka guud ee Soomaaliland suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan suldaan Maxamuud Cali Shire suldaanka guud ayaan doonayaa inaad iga gundoodid suldaan cali suldaan cismaan suldaan cali kooshin inuu iga gudoomo salaanta aanu sido ee aan uga sido suldaanka guud ee Soomaaliland suldaan Siciid suldaan Cabdisalaan suldaan Maxamuud Cali Shire isla markaana suldaanka guud ee beelaha harti inta markaan ka gudbo xafladdu runtii jahooyin fara badan bay soo martay meelo badanna way soo martay laakiin maanta dhadhan gooniya mar haday gabagabadii tahay macna gooniyay sameynaysaa xidhitaanka iyo anbabaxa suldaanka mar haddaan anigu meesha marayo macna gooniyay sameynaysaa waxay sameynaysaa in suldaankii guud meesha fadhiyo wakiilkiisii ee gobolka saaxil suldaan dadkaagiyo ku jecel dadkii reer Berbera ee harti ee daarood ee gobolka saaxil degana haddaanu nahay waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu ku jecelnahay suldaan cismaan suldaan cali kooshin halkuu taagnaa baad noo taagan tahay aad iyo aad baanu kuugu xisaabtamaynaa waanu ku jecelnahay sidii suldaan cali kooshin ummadda isugu waday ee uu ummadda oo dhan harti marka la yiraahdo ama daaroodkii Berbera ku noolaa suldaanka guud ugu ahaa sidaas leeg baanu jecelnahay inaad nagu hogaamisid aad iyo aad baanu ku xiisaynaynaa imaanshahaagana aad iyo aad baanu u soo dhaweynay waanan ku faraxnay maantana annaga qiimo weyn bay noo sameynaysaa ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay ka dhigo suldaankii ummadda oo dhan isku wadi lahaa suldaankii annagana si gooniya noo eegi lahaa xaaladaha iyagana la socon lahaa sidaasaanu ka baryaynaa mar labaad waxaan ku faanayaa Siciid Xasan Cabdillaahi meel kale kama keenin casuumadan meel buu ku abtirsadaa raad buu raacayaa saldanad guun uu ka soo jeedaa marka taana ku xisaabtama aad iyo aad baanu anagu halkan nin aanu dhalnay ama qiimo weyn buu nagu leeyahay waxaad ogaataan Siciid salaanta maanta casuumada qiimaha leh waxa uu ku abtirsanaya saldanadii uu ka soo jeeday qiimaha saldanadu garanaya qiimaha salaadiintu ay leeyihiin buu garanaya meel kale kama keenin isaguna uu u dhashay waa lagu dhalay sidaasaan maanta aad moodaa runtii inay qiimo gooniya taana u sii sameynayso ilaahayna waxaan ka baryayaa xilka uu ummadda u hayo intii uu joogay Soomaaliland meesha uu gaarsiiyayna waanu garanaynaa imikana waxaan doonaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo inaynu hal mar ugu ducayno in ilaahay xilka ummadda uu hayo mas'uuliyadda heerka gaarsiisan in ilaahay u fududeeyo ilaahay saasaynu ka baryaynaa dhibaatooyinka nin caaqilo halkan ka dhaqaaqay imika ma doonayno inaynu hawlo siyaasadeed iyo barnaamijyo galno laakiin waxa weeyaan garaadada halka ka hadlay iyo odayaasha halka ka hadlay iyo salaadiinta halka ka hadlay iyo dhibaatada laascaanood ka taaga waa midina wada saameynaysa walaalayaal ducay nagu leedahay inuu wada ducayno ilaahay saasaynu ka baryaynaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa waddankeenu horumar buu higsan iyo cadow badan baa inagu soo fool leh dhibaatooyin badan baa iska jira waxa aynu kaga dabaalan karnaa maaha hadal hawada la isu mariyo maaha in naxal iyo waqtigan la abuuro laakiin waxa kaliya aynu kaga badbaadi karnaa waxa weeyaan walaalayaal inagoo gacmaha isqabsanna u ducayna masaajidada tagna gacmaha kor u taagna ilaahay ka barina in ilaahay nimcada iyo barwaaqada iyo nabadgelyada ayna siiyay ee la inagu majeeranayo in ilaahay noo siyaadiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullahi